shir maanta ay soo qabanqaabiyeen qaar ka tirsan dhalinyarada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay ku doorteen gudoomiye ku-xigeen oo hogaamin doona dhalinyarada beesha Jidle ayaa waxay ka mid yihiin dhalinyarada ku nool deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxayna maanta ay qabteen xaflad ay ku dooranayeen gudoomiye ku-xigeen oo hogaamin doona dhalinyaradooda. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada beesha Jidle Axmed Sheekh Xuseen ayaa loo doortay gudoomiyaha guud ee dhalinyarada beesha Jidle, sidoo kale gudoomiye ku-xigeen ayaa loo doortay Mustaf Jaale Xasan. Labadan gudoomiye waxaa loo doortay inay si cadaalad ah u hogaamiyaan dhalinyarada beesha Jidle, iyadoo goobtaas ayagana khudbad ka soo jeediyay waxayna sheegeen inay si cadaalad ah u hogaamin doonaan dhalinyaradooda. Gudoomiyaha guud ee dhalinyarada beesha Jidle ayaa waxa uu dhalinyarada ka codsaday inay si cadaalad ah kula shaqeeyaan, isagoo sidoo kale uu sheegay in gudoomiye ku-xigeenkiisa iyo isaga si cadaalad ah ku hogaamin doonaan dhalinyaradooda. Mustaf Jaale Xasan waa gudoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada beesha Jidle, isagoona khudbad ka soo jeediyay xafladan lagu caleemisaarayay ayaga, isagoona sheegay in si cadaalad ah u hogaamin doonaan dhalinyarada beesha Jidle, isagoona dhalinyarada beesha Jidle ka codsaday inay si cadaalad ah ugula shaqeeyaan si howlaha horyaala uga hortagaan. Dhalinyarada deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ayaga intooda badan ay dooranayaan gudoomiye horjoog u ah dhalinyaradooda si ay uga qayb qaataan siyaasadda dalka. Ibraahim Macalimow, Raadiyaha TV-ga Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug, magaalada Baydhabo.